shukaansiga xalaasha ah macnaheedu waxaan u fahmayaa guurdoonka xalaasha ah inuu yahay waxa weey ka ku salaysan sharciga sharcigeenu marka hore si aan sina u imanin nin iyo gabadh kale ajnabi ah wuxuu u diiday istaawashadooda iyo wada hadalkoodaba waayo waa wadooyinka sinada waa la xiray laakiin marka guur la doonayo inay sarkaana waa la ogol yahay inay wada hadlaana waa la ogol yahay labadaba fi xuduud waana xad baana taa u yaalo in gaarab uu ka arki karaa wajigiisa gacmaha si uu qofkan quruxdiisa iyo jamaalkiisa u arko iyaduna iska eegaysa isaguna uu iska eegaya nabiga sidaa faroo yiri hal nadartaha inantaad guursanaysa ma iska eegto waxa la doonayaa laba qof oo isku qanca ma doonayna laba qof oo la isku qasbo ama la isku qariyo marka dambe soo kala booda waa in laba